Salaan sar asxaabteyda kusoo dhawaada muuqaal cusub. Waanigii soo laabtay. Hadday tahay markii ugu horeysay aad aragtay channelkayga, please subscribe-kii like noo saar. Haddana aan guda galno sheekadeena. Qisadeena waxay ka dhacday Riyaad, dalka Sacuudi Carabiya. Ninka qisadiisa aan ka sheekeynayno wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan, iskana shaqaysta. Waxaa lagu yeeshay deyn gaaraysa 30,000 oo dirham. Aad ayay arrintan murugo ugu haysay. Habeen iyo maalinna kama hurdi jirin deynta. Nasiib wanaag, habeenada kamid ayuu ninkan hurday. Waxaana la tusay riyo. Riyadaas waxaa lagu dhex tusay in lacagtan deynta oo 30,000 oo dirham ee lagu leeyahay uu ka helayo nin la yiraahdo Maxamed Qaadi oo degan meeshaas. Riyada lagu tusay meesha. Adiga ninkan waxba kama soo qaaday riyadii. Subaxii markuu soo kacay wuxuu is yiri riyadan aad xal aragtay waxa laga yaabaa walwalkii faraha badneed iyo murugadii badneed ku seexatay ee deynta dadka kugu leeyihiin inay tahay. Ninkan riyadaas waxba kama soo qaadin, hore uga socda. Adiga muddo kadib haddana sidii oo kale habeenada kamid ah jiiftay. Sidii oo kale riyadii ayuu arkay oo la leeyahay ninkaas ayaa 30,000 oo dirham lacagtaas ku siinaya u tag. Adiga haddana wuxuu is yiri subaxii adiga arrintan waxa laga yaabaa walwalka faraha badan ee kugu haysa inay tahay, hore uga socday, waxba kama soo qaadin. Waxaa dhacday haddana muddo kadib mar saddexaad ayuu haddana riyadii sidiisa arkay. Habeen buu jiiftay, riyadii sideedii loogu soo celiyay. Wuxuu is yiri subaxii markuu soo kacay kole riyadan kugu soo noqotay awal cidna umaada sheegi jirin, hadda bal dad u sheeg. Wuxuu u tagay sheekh meesha uu deganaa markaa joogay. Wuxuu ku yiri sheekhow, aniga waxaan ahay ninka noocaasa oo deynta intaa la eg lagu leeyahay. Haddana waxaan rabaa haddana waxaan ku riyooday riyadaas hal marna kuma riyoon, labana kuma riyoon, 3 jeer baan ku riyooday in deyntaas aan ka helayo ninka meeshaas degan oo magacaas leh. Wuxuu yiri ninkii sheekha ahaa, aniga isii maalmo waxaan soo ogaanayaa meeshaas inay jirto riyada ku aragtay iyo in ninkaas uu jiro. Waayahay ayuu yiri. Sheekhii baa arrintii baaray, wuxuu soo ogaaday ninkana Maxamed Qaadi inuu jiro, meeshana inay tahay meesha uu degan yahay. Adiga dib ayuu wuxuu ugu soo noqday ninkii deynta lagu lahaa. Wuxuu yiri arrintaas way jirtaa, ninkaasna wuu jiraa, meeshana way jirtaa ee aad. Wuxuu sameeyay ninkii wuu soo dhaqaaqay. Wuxuu is yiri kolley la'allahu khair. Wuxuu aaday ninkii wuu aaday meeshii uu deganaa qaadigii. Adiga mandaqadii dadka deganaa ayuu weydiiyay. Wuxuu yiri ninka noocaas maxay degan yahay? Waaba nin macruuf ah oo aad loo yaqaano oo meesha aad looga yaqaano. Qof kasta oo tilmaamay halkaas ayuu degan yahay. Meeshii uu ninka deganaa qaadiga ahaa masjid ku dhow ayuu salaadii casar ku tukaday. Iska ducaystay. Wuxuu aaday ninkii ayuu u tagay qaadiga ahaa. Wuxuu yiri niyahow aniga waxa ahay ninka noocaasa oo deynta lagu leeyahay. Deyntii waan iska bixin waayay, deynta 30,000 oo dirham. Waxa igu dhacday dhahay inaan riyo kugu arkay, riyo lagu ka tusay. Mar maahan, laba maahan, 3 jeer ayaa riyo kugu arkay. Markii dambe ayaa arrintaas ka ahaan waayay inaan qof u sheego. Sheekhaas ayaan u sheegay. Sheekhii ayaana igu dhiirigeliyay inaan ku imaado oo arrinteedana ku sheego. Marka arrintaas ay haysata buu yiri. Asagoo sheekadii wada ayaa waxa soo galay qaadiga u yimid nin maalqabeen ah oo dadka alla wax siiyay ah. Wuxuu yiri qaadiga ma kula hadli karaa? Waxaan rabaa inaan safar degdeg ah u socdaa Maka. Waxaan rabaa xoolahayga ayaa zaka lagu leeyahay. Zakada xoolahayga lagu leeyahay ayaa waxaan rabaa inaan ku dhiibo si aad u siisid qof muxtaaj ah. Zakadaasna waxa weeye 30,000 oo dirham. Marka waxaan rabaa qofkii u baahan inaad siisid. Adigana kugu soo wareejinaya 30,000 oo dirham baan ku wadaa. Subhanallah. Waa 30,000 oo dirham ee ninkan uu raadinayo deynta lagu lahaa.
adiga qaadigii wuxuu ku yiri arinta yani waxaa jirtuu dhahay ninkii yani maalqabeenka ahaa ayuu u sheegay, wuxuu ku dhahay waxaa jira ninkan miskiinka ah oo yani arinta riyaba ku arkay in maaragta lacagtan aan aniga siinayo dee ilaahay buu adigana kuusoo dhiibay, arintaana dee saasay u dhacday. arintii qisadii baa looga sheekeeyey ninkii maalqabeenka ahaa. subxaan allah. adiga dadkii dhan waa yaabeen. waxaa lagu yiri sidii ayaa ninkii lacagtii 30,000 oo dirham lagu wareejiyey oo zakada ahaa oo maaragtay ninkii miskiinka ahaa lagu wareejiyey. waxaa la weydiiyey ninkii waa maxay camalka aad samaysid oo maantay aad ku heshay fadligaas intaa leeg. ninkii ayaa la weydiinaya deynta lagu lahaa. wuxuu yiri aniga wax camalo aan sameeyo ma garanayo, muddo yani sanado ah ayaan waxaan keergareeyaa oo yani aan daryeelaa habaryartay hooyaday la dhalatay oo indhala oo curyaan ah oo awlaadna aan dhalin, ayaan muddo in ah sanado ah ayaan waxaan sameeyaa. subaxii markaan gurigayga kasoo baxo intaana shaqada aadin waa sii maraa, gurigaan u tirtiraa, hawsha dhan baa u qabtaa, cuntaan siiyaa, waxay rabto dhan baan u dhameeyaa. habeenkii shaqada markaan kasoo marayana sidoo kale waan sidoo kale aan u caawiyaa. muddo sanado ah yani sanado ayaan hawsha ku jiraa, yani habaryartay oo ii baahan ayaan caawiyaa. dadkii meesha joogay dhan way yaabeen. waxaa la yiri waxa maanta waxaasoo dhan aad ku heshay waxa weeye waa baarisameynta aad u baarisamaysay habaryarta. yani habaryartu waxay joogtaa booska hooyo. baarisameynta aad u baarisamaysay habaryarta ayaa maanta intaas yani fadliga intaa leeg ku heshay ku gaartay. ninkan camalkaas wanaagsan uu sameeyey ayuu ilaa halkaas ku gaaray. idinku dheereemayana qisada asxaabta idinka maaragtay commentiga kusoo qoraya wixii maaragta qisadaas laga qaadanayay iyo wixii laga faa'iideeyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.